السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرين جنال كمركز السود وواضح أدي هذا وما سنة كي سدح بلود وأي بحذ سداسي سجال بلود أي أكوارسن والله وقت جوا أردية مقال كانوا حرباينا إن ذكول وداجو صاحب يال المدحوين ترامب أو سعد ودمدا حلو فديسة أو ديده إن جعان كوسيان فريتان كمريكا هرمس وشاقي مركان أدينك أي إديت الله شدال كينا دونتا أو مريكا هرمس كسوقاتا إننا إذا كما عاونا إنه sida aad adinkuba u diideen inaadna caawisaan markii aan u baahnayn ayuu yiri madaxweyne Trump arrimahaas waa idinla wadaagaya iyo waliba isagoo sheegay in laga yaabo inuu soo gabagabeeyo dagaalka Mareykanku uu kula jiro Iran iyada oo aan la furin marinka Hormuzna waan idinla wadaagaya sidoo kale wasiirka gaashaandhigga ama dagaalka Pete Hegseth ee taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka General Dan Kane ayaa saaka shir jaraa'id qabtay saddex su'aalood ayaa la weydiiyay oo midda hore ay ahayd ujeedooyinka Mareykanka ma aysan kamid ahayn miya in marinka Hormuz ay furaan ciidamo lugta ah Mareykanku ma u dirayaa dalka Iran iyo dagaalkan goorma la soo gabagabeynaya haddaba saddexdaasi su'aalood oo kala duwan sidee wasiirka gaashaandhigga iyo waliba taliyaha guud ee ciidamada Mareykankuna ay uga jawaabeen sidoo kalena waan ciladii dhinaca codka waynu xalinay saaxiibkeen Hoso Bro ayaa naga caawiyay arrintaasi sida bartiisa YouTube-ka ee Hoso Bro uu shalay soo geliyay muuqaal uu ku sharaxayo halka dhibaatada ay ka haysatay YouTube-leyda Soomaalida oo anigu aan kamid ahay waa uga mahad celinaynaa qofkii Soomaaliya oo ciladaasi haysatana fiidiyoogii ugu dambeeyay ee shalay Hoso Bro uu soo geliyay ha ka daawado YouTube-kiisa Hoso Bro si uu ciladaasi isaga xalliyo meel ayaa jirtay loo baahnaa in la iska xiro waan iska xiray waxaan filayaa hadda kadib codkii inuu noo wanaagsanaan doono haddii aan ku bilaabo waxaan ognahay dagaalka Mareykanku iyo Israa'iil ay kula jiraan Iran in hadda bil uu ka gudbay waxa uu marayaa bil iyo 3 maalmood saarka shidaalkana cirkaasi ayuu isku sii shareerayaa $103 ilaa iyo $104 ayaa hadda halkii fuusta ay maraysaa waxaana leeyahay $117 ilaa $18 inuu gaaro ayaa laga yaabaa haddaba madaxweyne Trump oo maalmihii u dambeeyay hanjabaado kala duwan iyo muddooyin kala duwan dowladda Iran u qabanayay in marinka Hormuz ay furto hadii ay furi waysana uu burburinayo korontadooda biyahooda iyo dhamaanba waxyaabahooda asaasiga nolosha asaasiga u ah ayaa qoraalkan bartiisa True Social-ka maanta ku soo qoray wuxuu yiri dhamaanba wadamadaasi oo aan heli karin shidaalkii diyaaradaha marinka Hormuzna aan ka heli karin sida Ingiriiska ayuu carabaabay isla markaana diiday inay ku lug lahaadaan dagaalkan Iran waxaan idin soo jeedinayaa laba arrimood midda koobaad waxay tahay shidaalka horta anaga naga iibsada Mareykanka anagu kayd fara badan oo shidaal ah ayaan leenahay inaga naga iibsada ma wadiideen Soomahan midda labaadna waxa ay tahay ayuu leeyahay shidaal badan ayaan leenahay midda labaadna waxa ay tahay bal waxaad sameysaan geesinimadiina aad dib u dhigateen hadda la soo baxa oo shidaalka adinku soo qaato oo marinka Hormuz shidaalka ka soo qaata waa inaad bilowdaan ayuu yiri inaad barataan sida nafsadiina aad ugu dagaalantaan Mareykanku ma idin caawin doono halkaasina ma joogi doono maxaa yeelay markii inagu aan idin baahnaynba waadna caawin wayseen Trump waa kii ka dalbaday isbahaysiga NATO in ay gacan ku siiyaan furitaanka marinka Hormuz la markaana yiraahdeen dagaalkani oo markii aad bilaabaysan nooma sheegin waa dagaalkan dagaalkaada ee adiga ha kugu ekaado marka odagii hadda caradii ayuu banaanka keenaya wuxuu leeyahay anagu shidaal marinka Hormuz uga ma baahnin sida darteed hadii adinku aad u baahan tihiin ama anaga naga iibsada shidaal fara badan ayaan haysanaa hadii kalena shidaalkii orda ka doonta marinka Hormuz maxaa yeelay geesinimadiina aad dib u dhigateen hadda la soo baxa maxaa yeelay markii aan idin baahnayn waana caawin wayseen haddana anaga marka aad noo baahan tihiin idin ma caawinayna ayuu yiri wuxuu sheegay Iran in hadda dhulka lala sameeyo isagu uu sheegayo isla markaana shaqadii adkeed waan qabanay ayuu leeyahay hadda adinkuna baltiina qabsada anaga wuxuu leeyahay Iran waan burburinay sida isagu hadalku u dhigayo wala wali ay dagaalamayaan laakiin wuxuu leeyahay baltiini ayaa harsane bal adinkuna shaqadiina ka soo baxa sidaasi ayaa wadamadii xulufadiisa ninkii Trump ahaa uu ku leeyahay sidoo kale wararka kale ee hadda soo baxaya waxa ay sheegayaan maadaama Trump uu dhahayo wada hadal ayaa noo socda Iran aysan jirin sida ay sheegayso wada hadallo toos ah oo dhaxmaraya Mareykanka iyo Iran waxa Trump hadda la taliyaashiisa uu u sheegay sida wargeyska Wall Street Journal uu qoray in uu doonayo Trump inuu dagaalka joojiyo iyadoo aan dib loo furin marinka Hormuz
arrintaasi ayaa sidoo kale hadda soo baxaysa oo doonaya Maraykanku inuu gabi ahaanba dagaalkaasi soo gabagabeeyo marinka Hormuz oo xiran. Iiraan hadda waxyaabaha wada hadalka ay qodobada ay soo bandhigaysa waxaa ka mid ah in loo madax banaaneeyo marinka Hormuz. Waan aniga hore idin ku sheego xitaa waxay bilaabeen in maraakiibta qaarkood midkiiba lacag $2 milyan ay ka qaadaan. Marka Trump hadda waxa uu leeyahay sida muuqata marinka Hormuz oo aan la furin ayaan doonaynaa dagaalkan inaan soo gabagabayno. Maraykanka hadda 50,000 oo ciidamaha ayaa bariga dhexe ka jooga. waxaa markii hore joogi jiray ilaa iyo 40,000 10,000 oo dheeraad ah ayaa lagu daray. Arrintaasina waxaa muuqanaysay in laga cabsi qabo Maraykanku inuu doonayo ciidamo lugta ah inuu Iiraan geliyo. Haddaba arrintaasi waxaa maanta si toos ah loo weydiiyey wasiirka gaashaandhigga ama dagaalka Pete Hegseth iyo taliyaha guud ee ciidamada Maraykanka Dan Kane oo saaka shir jaraa'id qabtay. ugu horreyn wasiirka gaashaandhigga Pete Hegseth waxaa la weydiiyey ujeedooyinka Maraykanka miyay ka mid ahayd in marinka Hormuz ay furaan. arrintaas waxa uga jawaab waxa uu bilowgii ujeedooyinkeena aniga madaxweynaha sidoo kale taliyaha guud ee ciidamada Maraykanka madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kalena wasiirka arrimaha dibadda waa ay cadaayeen waxay ujeedooyinkeena ahaayeen ayuu yiri inaan burburino meelaha gantaalada ay ka soo saartaan warshadaha ay ku samaystaan Iiraan gantaalada ay hadda haystaan iyo sidoo kalena ciidamadooda badda ciidamadooda difaaca iyo sidoo kalena waxa uu sheegay in Iiraan mar kale aysan nuclear aysan yeelan laakiin waxa uu sheegay in marinka Hormuz anaga problemkeena ma ahna uu yiri marinkaasi Hormuz maxaa yeelay yiri madaxweyne Trump wuu isku dayay in wadamada xulufadiisa arrintaasi uu ku hogaamiyo laakiin waa ay ka soo horjeesteen marka waxa uu sheegay problemka marinka Hormuz anaga problemkeena ma ahan isla markaana sidoo kale marka madaxweynuhu uu hadlayo waxa loo baahnaa wadamadaasi inay dhageystaan maxaa yeelay markastoo hadlo madaxweynuhu wax sax ah ayuu sheegay yiri sida uu isagu hadalka u dhigay sidaas darteed waxa uu sheegay waa in hadalkii madaxweynaha ayuu soo qaatay wuxuu yiri waa in ay bilaabaan si isla markaana ay bartaan si ay nafsadooda ay ugu dagaalamaan arrintaasina wuxuu yiri in muddaha ayaan ka hadlayn wuxuu yiri in aad calan leedahay ama ciidan aad leedahay macna ma sameynayso laakiin waxa sameynaya macna inaad isbedel sameyn karto arrintaasina wuxuu yiri waa midda in loo baahan yahay in ay sameeyaan wadamadaasi waxana uu sheegay hadda caalamkan lagu nool yahay waxa loo baahan yahay inaad awoodaada muujiso haddaba waa kan wasiirka gaashaandhigga Pete Hegseth oo arrintaasi ka jawaabayay in ujeedooyinka Maraykanka ay ahayd furitaanka marinka Hormuz. Well, first on the Strait of Hormuz, our core objectives from this podium, from day one, from me, from the chairman, from the president, from the vice president, from Secretary Rubio and others have been clear. Defense missile production and missile programs, so their entire missile program, defense industrial base and production ability to build, and Navy and power projection. So those have been, and then of course wrapping it all is Iran's never going to have a nuclear weapon. So those have been very clear. Defeating the Navy is a core part of ensuring they can't project that kind of power. But ultimately, I think the president's truth this morning lays that out very well, that this Strait of Hormuz issue, which we've set the conditions for success, and we will make sure Iran knows that very clearly, is not just a United States of America problem set. We've been willing to lead. President Trump's led the entire time. But it's not just us. So ultimately, I think other countries should pay attention when the president speaks. He's proven that when he speaks, he means something. And he's pointing out, you might want to start learning how to fight for yourself. It's something some of us have been saying for quite some time. You can't just have flags. You have to have formations. You can't just have a few ships. You have enough to affect change. Those things matter in a dangerous world with ascendant adversaries. That's why the chairman's talking about our industrial base. That's why we're launching the Arsenal of Freedom tour to revive our defense industrial base. President Trump doing it in a way that nobody else has. sidoo kale waxaa la weydiiyey taageerayaal fara badan oo madaxweynaha jecel waxay ka walaacsan yihiin in ciidamo lugta ah Maraykanku uu u dirayo dalka Iiraan arrintaasi muxuu uga jawaabay waxa uu sidoo kale yiri in ciidamo loo diro wuxuu yiri dhulka ah wadanka Iiraan madaxweynaha ayay ka go'daa taageerayaashiisuna waxay tahay yiri inay ku kalsoonaadaan maxaa yeelay horay ayay u arkeen madaxweynuhu waxyaabaha uu qaban karo iyo waliba ajendayaashiisa in nabad uu awood ku raadin karo waa sida hadalka uu dhigay laakiin waxa uu sheegay cadowgaada ma ahan inaad u sheegto inaad doonayso waxa aad sameynayso ama waxa aadan sameynaynin sidaas darteed wuxuu yiri Iiraan iyada xitaa waa ogtahay inay jiraan 15 wado oo kala duwan isla markaana aan ku soo weerari karno arrintaasina waa ay ka warhayaan waxana uu yiri hadii loo baahdo
waan samayn karnaa laakiin waxa uu yiri inaan loo baahanaya macquul ah oo wada hadalka socdo uu guuleysto amaba ay soo baxaan wadooyin kale sidaas darteed waxa uu sheegay sidoo kale madaxweynuhu waxa uu kamid ahaa dadkii casharada ka bartay dagaaladii Ciraaq iyo Afghanistan sidaas darteed waxa uu sheegay in casharadaasi hadii dad fara badan ay si aada ay u darseen in muhiimadeedu ay tahay madaxweynuhu inuusan doonayn inuu soo celiyo arrintaasi oo kale marka waxa uu leeyahay arrintii ciidamada Mareykanka Ciraaq iyo Afghanistan ka qabsato kale madaxweynuhu ma doonayo in uu soo celiyo As far as President Trump and boots on the ground I don't understand why the base, which they have already, they understand, wouldn't have faith in his ability to execute on this. Look at his track record of pursuing peace through strength, America first outcomes. What he's simply saying, and it's exactly true, and I've said from this podium too, we're not going to foreclose any option. You can't fight and win a war if you tell your adversary what you are willing to do or what you are not willing to do, to include boots on the ground. Our adversary right now thinks there are 15 different ways we could come at them with boots on the ground. And guess what? There are. So if we needed to, we could execute those options on behalf of the President of the United States and this department. Or maybe we don't have to use them at all. Maybe negotiations work, or maybe there's a different approach. But the point is to be unpredictable in that. Certainly not let anybody know what you're willing to do or not do. But if anybody has internalized the lessons of Iraq and Afghanistan, as the first one, President Trump, to call them out for what they are, he's not going to repeat those lessons. And I think I've been very clear about that from the podium. ugu dambeyntii marka waxaa la weydiiyay dagaalkan goorma ayuu Mareykanku soo gabagabeynaya wasiirka gaashaandhigga ee taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka waxa uu sheegay sida hore su'aashii hore aan u sheegay uu yiri ma doonayno cadawgeena inaan u sheegno waxa aan doonayno inaan sameeyno ama waxa aan doonayno inaan sameeyno sidaas darteedna ma u doonayno inaan u sheegno xilliga dagaalkan aan joojinayno marka waxa uu yiri markastaba cadawgaada ma ahan inaad u sheegto waxa aad doonayso isla markaana waxa uu yiri ujeedooyinkeena wali ma aanan gaarin madaxweynaha ayuuna ka go'aanka ah dagaalkan xilliga la joojinayo isla markaana danta dadka Mareykanka ay ku jirto isla markaana waxa uu sheegay in arrintaasi ay tahay mid muhiimka oo la doonayo in la ogaado waxa uu yiri ujeedooyinkeena wali ma aanan gaarin aan dagaalkan u galnay laakiin marka aan dhameystirno ujeedooyinkaasi dagaalkan waa joojinayna Well, just like the previous question, it's sort of military 101. Don't tell your enemy what you're willing to do or not do, and don't tell your enemy when you're willing to stop, especially an enemy that likes to hide in bunkers and try to hoard their missiles and hope you'll wait you out. So that's not a question I'm going to answer or the president has said definitively. We have our own goals and guidance and things we're military objectives that we're moving toward and things that we look at. And as he's articulated, he's said 4 to 6 weeks, 6 to 8 weeks, 3 It could be any particular number, but we would never reveal precisely what it is because our goal is to finish those objectives. And we're well on our way. And the chairman and I look at this every single day. It will be the president's determination and the president's determination alone when those objectives are complete and when it serves the interest of the American people to cut that deal, to make sure that Iran doesn't have a nuclear capability and ultimately that our objectives are our interests. sidoo kale waxaa jira hadda website-kan dad Mareykan ayaa sameeyay waxa laga socdaa lacagta ku baxaysa dagaalka sida halkan aad ka aragtaan hadda 36 trilyan ay lacagtaasi ay kor u dhaaftay dagaalkan ku baxaysa halkii second waxa ku baxaya 11574 halkii daqiiqana waxa ku baxaya 41,666,000 ilaa sidoo kale 667 ayaa ku baxaysa halkii maalin waxa ku baxaysa 1 bilyan oo dollar website-kan ayayna dadka Mareykanku ay sameeyeen oo ay kala socdaan lacagtaasi ku baxaysa Mareykanka dagaalka uu kula jiro dalkaasi Iran oo hadda waxaan filayaa inuu maalintii 33aad uu marayo marka xaaladdu halkaas ay maraysaa Trump wuxuu leeyahay dagaalkan waan joojinaynaa iyadoo aan marinka Hormuz la furin wadamadiisa xulufadiisana waxa uu yiri anaga marinka Hormuz waxaan uga baahanahay mid jirto hadii aad shidaal uga baahan tihiin geesinimadeena muujiya ee halkaasi shidaalka ka soo wata ama anaga naga gata anaga ayaa shidaal badan haysanay aad iyo aad u mahadsantiin asxaabiyo nabadgelyo